إلا أحد بالشيكادني معنوي كو كردين كرتا هدي أتسيفي على درجيسته نكني وانوين أو لقدريه بالشدي سايو كمدي هي احترامنا والله هي أنت أوحو داري هي بشغلي سو وإن أرتيد يرجر يعربوا مسؤول كي هي مسؤول كسوحي هي لما شيء ما طلول بوكاها ما وحوها أسيستن بورهروها ما معلم بوها وحو طونا بهالنقطة نكني وانين ضد يرجر أو عرور هبلو مسؤول كا hase haatee waqtiyada kamid ah ayuu wuxuu ka sheekeeyay in hablihii yaraa ee mas'uulka ka ahaa inuu qaar kamid ah u farxumeeyay hadaba waqtigu wuxuu socdaba 16 sano kadib hadda waa 16 sano kadib ayaa ninkaasi waxa weeye waqti dambe la xiray waqti dheer buu xidhnaa intii uu xidhnaa buu shaqadii waqtiga dheer uu soo hayay ee lagu ixtiraam jiray laga eriyay deyn fara badan ayaa lagu yeeshay markaas meel wal oo istaagay deyn baa loo haystaa ninkii macal waqtigu wuxuu socdaba wuxuu isu bedelay qof dowrsada ah noloshiisuna haba yaraatay ay taxta sifar tahay ama below zero ay tahay ninkani wuxuu mar walba ku cabaadi jiray oo uu sheegi jiray halka laga raacay inay ahayd 16 sano ka hor waxaanu mar walba oran jiray nacdashii dambigii aan sameeyay 16 sano ka hor ayaa maanta ay haysta kale waa mid kale waa nin dhalinyaro ah waa nin adiga oo kala ah ninkan wuxuu dhigtaa kulliyadda caafimaadka kulliyadaha ugu sareeya una qadarinta badan bulshada marka la dhex degan yahay hase ahaatee ninkani wuxuu waqti dambe u ogaaday ama u bartay inuu galo websiteska aflaanta xun lagu daawado wuxuu ka sheekeynayaa isaga oo afkiisa kaga waramaya in arintaasi ay dhaqankiisa ay wax ka bedeshay ninkani wuxuu bilaabay inuu noqdo qof aan naftiisa aan controlling nin shaydaanka iyo naftiisu ay hogaaminaysa ayuu noqday oo aan wax qaraar ah iyo wax go'aan ah haba yaraatee aan qaadan karin arintaasi waxay ku keentay in waxbarashadiisa maalinta ka hooseysa ay hoos u dhacdo darajadiisa ay hoos u dhacdo waxbarashadii ay ku adkaato heer markii dambe ninkii kaalinta koobaad gali jiray sanad walba oo markii dambe uu noqday qof saaqid ah waxbarashadiina ka tagay adduunyadiisana aan ku fiicnayn aakhiradiisana gacantiisa ku baabiyay walaalayaal asxaabay waxaan ka hadlayaa waan cadasha ay wadato dunuubtu xalqadan arintaas ay ku saabsan tahay dhamaanteen waxaynu nahay dad dambiilayaal ah dambigu waxaynu nahay qaar mar walba dambaabay hase ahaatee in dambiga aad iska joojiso waxa ka saaciday inaad ogaato xanuunka iyo dhibta ay dambigu u leeyahay dambigu xanuun aad u farbadan buu leeyahay uquubaad wax loo yaqaano ayaa uu leeyahay uquubadaasi waxay noqon kartaa mid ku soo degdegta waxay noqon kartaa mid dib lagu dhigo sidii hadda aynu ka warameynay ee 16 sano kadib ay ku soo kacday uquubadii dambigii uu sameeyay saaxiibkayo walaalkayo walaashay waxaad ogaataa dambigu uquubadiisu waa tii mar walba imanaysa hase haddii dadku way ku kala duwan yihiin qaar waa qaar dareensan halka hadda laga raacay wax allaali waxaan dhibaato haysta halkay ka imaadeen buu ogyahay midna qof aan dhaadsanayn arinta inta badan laakiin qof waliba gadaal buu ka ogaada halkay laga raacay waxa sidoo kale muhiim ah qofku markuu dambiga sameeynayo xumaantiisa qarmuunkiisa dhibaatooyinka ka dambeynaya ciriiriga ka dambeeya dareemi maayo ilaa iyo xumaanta uu sameeyo oo waxa uu dhamaysto mooyaane wuxuu ka dhigan yahay sidii qof waxa uu xanuunsanaya oo la qalay hase haddii intii qaliinka uu ku socday la suuxiyay markii suuxitaankii ay ka baxday yeerbadina xanuunkii dhamaantii uu soo noqday waxaan kaaga warrami doonaa tiraba 9 arin oo dambigu noloshaada si adag ugu saameyn karo waa marka koobaad dambigu waa waxa weey saameyn wuxuu ku leeyahay qalbiga waxa inta badan dhacaysa qofku markuu dambiga badsade dambigu caado uu noqdo inuu qofku uu dareemo ciriiri inuu qofku noqdo qof sidii dadsan oo kale markaas qofkii wanaag la u sheegaya uu ka didaya qofkii tala siinaya uu ka didaya qofkaasi awood uma leh inuu wajaho qofka runta u sheegaya ee wax u taraya marka qaar waxa keenaysa in hooyadii aabihii ama macalinkiisa cid walba ka jeclaa in uu cadow ka dhigto dunbiyadu uquubada ilayeen waxa kamid ah in qofka dambiga badan ilaahay uu tawfiiqda uu ka qaado wax allaali wax kastuu qabanayo waxa weeye uu ku fashilmaya wax kastuu qabanayo waa lagu adkeynaya hadii wax barasho u dhaqaaqo hadii uu shaqo u dhaqaaqo hadii mashruuc ganacsi u dhaqaaqo wax walba waa kii ku fashilma dambiga ayaa uquubada leh waxa dambigu uquuba uu leeyahay risqi aad qaadan lahayd ayaa ku nusqaamay sida rasuulku kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay oo qofku dambiga uu ku dhaco risq weyn ayaa waxa weeye laga xiraya bal waxaad sawirtaa mashaariic intee leeg shaqooyin intee leeg baa kaaga xumaaday dambi horad ku dhacday adiguna aad ogtahay bal dib taariikhda ugu yar noqon waxa dhacaysa in qofku markuu dambiga uu macmiil uu ka dhigto in wanaagii iyo fiicnaantii iyo taacadii qofku ilaahay u adeecay in laga joojiyo dabadna qofku cibaadadii iyo salaadii iyo soonkii ciriiri bay ku noqonayaan xataa hadii uu sameeyo qaar baba marka dambe waxay gaadhaan heer inaanay wax wanaagaba aanay sameyn xumaanta uu u banbaxa si dhammaystiran
waxa dambiga cuqubadihiisa kamida in ilaahay qofka uu huyo huga iyo waxa weeye dharka dulliga iyo waxa weeye hooseynta markaas qofkii dambiga badnaa wuxuu noqonayaa qof hooseeya ilaahay agtiisa qof hooseeya liita weeye dadkana waxa loo dhex dhigaya nacaybshiyo markaas qof waliba uu nacaya ha ku tagsoomin dadyogan caanka ah ee xumaanta ku caan baxay sida fanka iyo aflaanta iyo dadyogan noocaas caanka ah farxadan iyo qosolkan iyo wanaagan waa dheeha sare ee ku muuqda laakiin gudahooda way egyihiin inaan ciidana aan ka jeclayn inta jecel ku hareereysana waa mid tan ku qaba iyo mid arin uga baahan iyo mid inuu maslaxadi ay ugu jirto dambigu wuxuu keenayaa in qofka lagu naco wuxuu keenayaa dambigu waa waxyaalaha ugu daranay inuu qofku dambiga uu sii wado oo waxay culimadii hore dadkii wanaagsan oran jireen abaalmarinta dambiga waa dambi kala abaalmarinta wanaaguna waa wanaag kale oo lamida marwalad wanaag sameeyso wanaagaas wanaag kale u dhalaya waa abaalmarin ilaahay ku siiyay xumaantuna abaalmarinteeda waxa kamid ah in xumaan kale ay ku dhacdo oo qofkii hadana xumaantii kale mid kale ku sii xigsiyo hadana mid kale ku sii xigsiyo heer uu gaaro meel aan iska soo qaban karin waxyaalaha kamid ah ee dambiga waxa weeye uu keensado waxa kamid ah wixii nimca aad lahayd caafimaad shaqo hanti qoys iyo reer wanaag aad haysid oo dhan si yaro fudud bay gacantaada midig uga baxayaan oo gacantaada bidix uga baxayaan waxaad arki doontaa waqti dambe hadaan faraha ka qaadin dambiga aad gacanta ku hayso xumaanta aad ogtahay in aad sameynaysid waxay doontaa noqotay waxaad arki doontaa waqti dambe adoon wax gacanta kugu jira haba yaraatay aan jirin isla sidoo oo kalena waxa weeye cid ku garab istaagayso oo dadkii aad jeclayday garabkaaga ka waay doontaa marka hadaba intaan waqti ku dhicin fursad wali wad haysataa si fiican uga faa'iideyso dambiga waxyaalaha laga faa'iido waxa kamid ah cuqubadihiisa kamid ah inuu qofku ilaahay cabsi uu ku abuuro cabsi qofku ka cabsanayo mustaqbalka cabsi uu ka cabsanayo waxa soo socda cabsi uu ka cabsanayo wax kasto hadda uu wado ubadkiisu cabsi ka qaba taloomi wanaagsanaan may xumaan doonaan mustaqbalku cabsi ka qaba taloomi fiicnaan doona wax allaali wax kasta oo la sheego oo qof ka baqanayo waayo waxa aanu amaan ka haysan ilaahi amaanka iyo nabadgelyada daakhiliga ah gudaha bixin jiray ayaanu amaan ka haysan cuqubadaha soo cuqubadaha dambiga intaan noloshaadu wax kala aanay noqon fadlan walaalkayo way talo qaali ah arinta iska ilaali iskana jooji si noloshaadu ay noqoto nolol wanaagsan oo fiican